بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في العقيدة، waxaan ku guda jirnay kitaabkeenii mukhtasarka ahaa al-40 an-nawawi noo socday insha allahu tacaala. maanta waxaynu insha allahu geli doonaa darsigeenii toddobaad baan rabaa insha allahu inu geli doonaa. darsigeeni lixaad wuxuu noo marayey ama aan ku soo joojinay xadiidka 16. darsigeeni toddobaad insha allah wuxuu ka bilaabmi doonaa xadiiska 17 ee mukhtasarka ka mid ah. waxaa ciwaan looga dhigay alamru biixsaani dabxi walqatli walrifqi bilxayawaan. in la is amray markii wax la gowracayo, neefka la gowracayo, in ixsaan loo sameeyo. maxaa yeelay neefka markaad gowracayso marka hore waxaa la rabaa inaad mindida afaysatid, neefka hortiisana aadan ku afaysan, meeluusan neefka kaa arkayn inaad marka hore mindida ku soo diyaarsatid. oo waxaa la diidayaa mindi aan af lahayn in neefkii lagu bireeyo oo uu neefkii markaa uu silco, lama ogola. waxaa la rabaa marka neefka markii la biraynayo mindidaadan waa inay af leedahay, waa in aad hortiisana aadan ku afaysan, iyadoo diyaar aad qabato oo qiblada u jeediso oo bisin kale u qabato tira bismi illaahi allahu akbar. mindidu marka ay noqoto mid durba jarta si naftaba durba u dhaafto. وعن أبي يعلى waxaa laga wariyey شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulka ilah xaggiisuu ka wariyey qaala wuxuu yihi nabigeena إن allaha ilaahay kataba ilaahay wuu qoray alإxsaana ixsaan buu ku qoray calىa kuli shayin wax kasta in ixsaan loo sameeyo ayuu ilaahay qoray. nabigeena wuxuu yihi faidaa qataltum haddaad wax dilaysaan faaxsinuu wanaajiya alqitlata dilka, waidaa dabaxtum haddaad wax gowracaysaan faaxsinuu wanaajiya addibxata gowraca, walyuxida ha afaysto axadukum midkiina shafratahu mindidiisa, walyurixa u raaxeeyo dabiixatahu mid uu gowracayo. rawaahu muslim, xadiidka imaam muslim ayaa werinaya. ilaahi subxaanahu wa tacaala wax kasta waxaa la yidhi ixsaan buu ku qoray. haddaad wax dilaysaan dilka wanaajiya oo qofka yaan la silcin. bimacnaa qof baa maalan kaba soo qaad qisaas ku waajibtay, sida ugu fudud ee naftu ku dhaafi karto in nafta loo dhaafiyo, maadaama dadkii dhiigga lahaa ay go'aansadeen in qofkan loo dilo. sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay haddii wax la gowracayo, neef baad gowrici, geel baa ugu weyn, digaag baa ugu yar, in gowraca la wanaajiyo oo qofka marka hore neefkan uu rabo inuu bireeyo uu gowraco, wixii uu ku gowrici lahaa oo diyaarsan oo afaysan qofka inuu diyaarsadaa la rabaa. hadhow markaa neefkan markii la gowraco, sakiintu markaa si deg degay u mari ama mindidu si deg deg u maraysaa, kadibna nafta dhaqsay uga baxaysaa oo ku silci maayo oo in badan fiiq ku haymayo. sidaa weeyaan. وعن أبي يعلى waxaa laga wariyey شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulka ilah xaggiisa wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yihi nabigeenu إن allaha ilaahay kataba ilaahay wuu qoray alإxsaana wanaag buu qoray calىa kuli shayin wax kasta dushooda in wanaag loo sameeyo ilaahay qoray. faidaa qataltum haddaad wax dilaysaan faaxsinuu wanaajiya alqitlata dilka wanaajiya, waidaa dabaxtum haddaad wax gowracaysaan faaxsinuu wanaajiya addibxata gowraca wanaajiya, walyuxida ha afaysto axadukum midkiin shafratahu mindidiisa, walyurixa u raaxeeyo buri nabigu calayhi الsalaatu wasalaam dabiixatahu, waxa uu gowracayo si markaa ay naftu durba uga baxdo ha sameeyo buri nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam. xadiidkeena 18 oo ka mid a dersiga 7
وحيوان لوغا دغاي الحث على الاخلاق الحسنه ان لا اسكو بوريو دقنكي اخلاقda wanaagsan اخلاقda wanaagsan in la isku buuriyo la isku tartarsiyo la isku wacdiyo la isxasuusiyo ayuu nooga hadli doonaa way وعن أبي ذر وحا لغا وري جندب كاسو ابن جنادة وأبي عبد الرحمن أبيس وحا لغا وري معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله وحو كوري صلى الله عليه وسلم قال وحو يري نبيغو اتق الله إلهي كعبس حيث ما كنت ميل الله لم يشهد كسغنته بط iyo beri ilaahay ka cabso cabsida ilaahay marniyaysan ka faaruqin waatbic raaci as-sayyi'ata xumaan al-hasanata wanaag raaci tamxuha way tirtiraysaa waxba ka dhacay bani aadam baata wixii ka dhacay waxaad ka dabageysaa buu nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam wanaag iyo khayr ka dabagee wa khaliqin nas dadkana kula dhaqan bi khuluqin dabaa'at hasanin wanaagsan dadka in lala dhaqmo lala macaamilo wax lala qaybsado la dhaxgalaa dabeecad wanaagsan lagula dhaqmo ayaa la rabaa way hadaad dadkan la dhoolaan weydo oo la dhaxgali weydo oo tiraado dadkan way dhib badan yihiin banaanka uga baxaya waxa ka khayr badan qof dadka dhaxgala dhibka ay u geystaanna ku sabra u dulqaata ayaa ka khayr badan kan banaanka fadhiista jarkameys idan marka xadiiska wuxuu ka hadlayaa qof kasta inuu ilaahay ka cabsado meel Allah la meeshu joogo haduu kaligii yahay hadii uu dad la joogo jarkameys hadaad kaligaa tahay hays oran cid ku arki maysa waxa doonto samee ittaqillaha ilaahay ka yaab haythu ma kunta meel Allah la meesha joogtad ku sugan tahay waatbic raaci as-sayyi'ata xumaanta al-hasanata wanaag raaci oo ka dabagee tamxuha way tirtiraysaa wa khaliqin nas dadkana kula dhaqan bi khuluqin hasanin dabeecad wanaagsan buu nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam rawahu tirmidhi bawriyay qala wuxuu yiri hadithun hasanun wa fi ba'd nusakhi waxay qoraysaa hasanun sahihun inuu yahay idan guud ahaan marka hadiis waxaynu ka faa'iideysanaynaa inaan ilaahay ka cabsano subhanahu wa ta'ala bani aadam baana wixii naga dhacaahu aan ka toobad keenno marka hore go'aan ku gaarno inaynan ku laabanayn waxa xumaanta naga dhacay masiyada naga dhacday haday tahay mid xaq bani aadama in bani aadamka cafis la weydiisto lagana qoomameeyo wanaag la daba raaciyo dadkan lagula dhaqmo dabeecad wanaagsan xadiidka 19 oo kamid ah darsigeena 7 ee kitaabkeena mukhtasar al-arba'in nawawi wali ku jirnaa ihfadillaha yahfaz ciwaan baa looga dhigay ilaahay xifdi oo ilaali oo wax alla wuxuu ka raba samee wax alla wuxuu ka reebana ka har ilaahay asaa ku xifdanayo ku dhowranayo ku ilaalinayo waligiisa noqonaysa marka يعني واسداس وي إلهي بانا أبورتي سبحانه وتعالى رسول بو نو سو ديري كتاب لو سو ديبي قاب كان u noolaan lahayn oo ilaahay u caabudi lahayn wixii ilaahay naga rabay waa hari lahayn oo dhan waana loo sheegay marka waxa la rabaa qofka inuu ilaahay xifdiyo oo ilaahay aqoonsado oo ilaahay barto oo ilaahay sida loo caabudayo barto meelaha ilaahay uu ka rabo un laga arko meelaha uusan ilaahay ka rabin oo marka qofku iska ilaaliyo weeyaan markaas oo ilaahay adoonkiisa xifdinaya weey وانا ابي العباس وحا لغا وري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وحيري كنت وحنا ابو عبد الله بن عباس ويانه خلف النبي قداشي سنه ابو صلى الله عليه وسلم يوما مالين مركز فقال نبينا وحيري يا غلام اني انيغو اعلمك وحان كبريا ابو كلمات كلمدان كبريايه بل يغا دغيس سؤال كميس كلمدان كبريايه يدغيسو مركز النبي وحيري احفظ الله ويليه اله حفظي يحفظك هكو حفظيه احفظ الله إلهي حفظ تجته وذليسا تجاهك هرتا ذات كاليسا إذا سألت هداد وحويديسان فاسأل الله إلهي ويديسو وإذا استعنت هداد كالمات ضلبيسان فاستعن بالله إلهي كالميسو واعلم واحد أغاتابه النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة أمدا أردمي لو اجتمعت هداي كورنتي أرورتو أي سوغي ماذان
على أن ينفعوك إني كتران أما كوغا أنفعان بشيء شيء لم ينفعوك كوغما أنفع كران كوغما تري كران إلا بشيء شيء بي كوغا أنفع كران شيء وقد كتبه الله لك إلهي وكوقري وإن اجتمعوا هدي كلمان ومدي ويانه على أن يضروك إني كدبان بشيء شيء كوغو دبان هدي سوغي مادان ولي نينكا سبلان دباتي وغيسنو أما أن دبن هدي كلمان نبينا وحور لم يضروك كدبان مكران إلا بشيء شيء مو يشيغا وقد كتبه الله إلهي وقري عليك دشادا markaasuna wuxuu rufi'at al-aqlaam qalamadii waa la kor yeelay oo wax la qorayo ma jiro horaba loo qoray wajafat as-suhuf warqadihiina way qalaleen oo wixii hore loo qoray lahaana waa la qoray warqadihii loo qoran wuxuu yiri nabigu calayhi way qalaleen bimaana qad intaha fal aqlaam qad rufi'at bimaana waxa leeyahay wala tabdila li kalimaati illah ilaahay wuxuu hore u qoray waa qorin marka nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wixii kugu dhacaaba ووحي الله سبحانه وتعالى هركوغ قري رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح سؤالك ميسد إذن مركا وحال الرباه إن قف كستبه إلهي حفظيه وإلهي أمر كي سقاته وحو أمري سمايه وحو كربين وكهر عباده وكدداله سي إلهي سبحانه وتعالى اسمه وحفظيه سؤالك ميسد qofkii inuu ilaahay xifdiyaal raba ama amartiisa uu qaato meelihii uu ilaahay ka rabayna laga helo soo arkamaysid haddaad wax weydiisanayso ilaahay wax weydiiso mas'alada qofka inaad wax weydiisataahi waxa uu awoodana aad weydiisataahu mamnuuc ma qofka inaad tiraahdo niyo shaah iga bixi maanta ma qur'aana bal qaadada niyo iga bixina tiraahdi waxba dhiba male waxaa la diidaya waxaan ilaahay mooye aan cid kala awoodin inaad weydiisataa la diidaya soo arkamaysid waaye markaasuu nabigu wuxuu leeyahay ummadda o dhan hadday kuu kulanto baa wiil yahow inay wuxuun ku taraan in la kulmay shir baa lasugu yimid waa la soo aruuray waxaa la yidhi bal ninkan maxaan gacan u geysan karnaa siin karnaa marka nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxay kugu anfici karaan male ilaa wixii ilaahay kuugu qoray wixii ilaahay kuugu qoray ama awal lagu qoray in lagu tiro ama lagu siiyo un bay bixin karaan wixii hore loo qoray un bay qaban karaan waxaan awal ama lagu qoray in lagu tiro oo aan horeba loo qorin waxba kugu qaban ma karaan waa wuxuu leeyahay kuntu waxaan ahaa khalfa nabiy nabiga gadaashiisa sallallahu alayhi wasallam yawman maalin markaasuu faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa ghulaam inii anigu ucallimuka waxaan ku barayaa buu yidhi kalimaatin kelmadaan ku barayaaye احفظ الله إلهي حفظي يحفظك هكو حفظية احفظ الله إلهي حفظي تجده وثليس إلهي تجاهك هرت هذا إذا سألت هداد وحويدي سنيسو فاسأل الله إلهي وحويديسو وإذا استعنت هداد كلمة طلب سنة فاستعن بالله إلهي كلمة كظلم واعلم أقوب النبي عليه الصلاة والسلام ويليهو أن الأمة أمد لو اجتمعت هداي كلانتو على أن ينفعوك إن يكوغا أنفعان بشيء شيء لم ينفعوك كوغما أنفع كران إلا بشيء شيء مويه شيء وقد كتبه الله لك إلهي كو قرئ بيكوغو وحكوغو تري كران وإن اجتمعوا هداي كلمان على أن يضروك إن يكون دبان بشيء شيء كوغو دبان لم يضروك كوغما دبي كران إلا بشيء شيء مويه إلا بشيء شيء بيكوغو دبي كران شيء وقد كتبه الله إلهي وقرئ عليك دشاد رفعت الأقلام قلمدي ولا قريلي أو حدر لقرية السعودان مله هراب الله قري وجفت الصحف ورقدين ويقللين أو وحي لقري ورقدها بكيالين بدل من الله تبديلا لكلمات الله وياه وفي رواية غير الترمذي نبي حور عليه الصلاة والسلام احفظ الله إلهي حفظي تجده وثليس أمامك هرتاذ تعرف قرأ حسوسه وياني إلى الله إلهي في الرخاء مركز برواق جرت مركو إلهي كو برواقيو وإلهي كو نمعيو وإلهي أدونك كوفرو وعافمات كسيو ومال كسيو أبد كسيو إلهي حسوسه يعرفك إله سنو كجرنا يوكو حسوسنا يا في الشدة مركز لباتك لسودرست واعلم أقول النبي عليه الصلاة والسلام أن ما أخطأك وحي كجفة أو أن كجد عن لباتها لم يكن إنسان أهانين ليصيبك متكو أصيبيا حبا مقتهي كو أجمري أما ربا ما كبد بادي وإلهي كو أصيبن وعن أول بإلهي كو مغرن كو نعان وما وحي أصابك كو أصيبنا لم يكن ما أهان ليخطئك متكو جفة أول بالغو قري واعلم واحد وقال تابر النبي عليه الصلاة والسلام أن النصر جرجاركو مع الصبر صبر كما عيسو هذه إن مع العسر يسرا جوش أي جرجاركو اسكمت بعده إن الصبر بيكوت ماذا وأن الفرج فرج كنا مع الكرب بو هذه كرب معذو هذه وأن مع العسر علاس كما عيسو هذا بر النبي عليه الصلاة والسلام يسرا فضيت أيا هذه
سورك ميست نبي حوري احفظ الله إلهي حفظي تجده وذليسا أمامك هرتاذا تعرف قرأ حسوسه إلاوين إلى الله إلهي حقيسا في الرخاء مركز بروا كجرتو إلهي كون معيو إلهي حسوسه عبادة حسوسه وحنا الله بح سورك ميست يعرفك إلهي وكقرن في الشدة مركز دباتك وقود عظامات دب درينتد ود إلهي قعمه ودقته وترى إلهي إيقا سوقار إلهي وكوقر من ياوان واعلم واحد وقاتا أن ما أخذاك وحي كجفا لم يكن إنسان أهان ليصيبك متك أصيبيا وددنا عذا تاجنيد قاربا مدى أكتاد وحكم مري سي إلهي أجيه وحتى الحمد لله إلهي بكومو قرنبا هاورن قدال أسو بوضي هدانا صوصي كان لهين قاربا ويمر لها هاورن أرجع جوج وما وحي أصابك كو أصيبنا لم يكن معهن ليخطئك متك جفا أول با إلهي كو قري كو قناع قدرت إلهي ويان واعلم واحد وقاتابر النبي عليه الصلاة والسلام أن النصر جوشو مع الصبر صبر كمعي شيء هاتي وأن الفرج فرج كنا مع الكرب كرب معي سوء هذي وفرج إلهي وكان يقفك مركو كربوضو وهو هاو لبات بدن أمره إلهي معناه فرج بكدم بيويا وأن مع العسر علاس كمعي شيء هاتي يسرا فضيت إن شاء الله تعالى أنت كل من دونه درس حجة وحنين كجت جيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته